carwaduna muddo 3 cisha ka socotay magaalada Hargeysa gaar ahaan hotel Guuleed ayaa waxay shirkadda isgaarsiinta Telesom ku soo bandhigtay adeega 4G plus iyo adeegyo kala duwan oo casri ah waxa kaloo intaasi dheereed baqtiya nasiib loogu talagalay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Telesom oo qofkii ku guuleystaa loogu talagalay abaalmarin ay ka mid ahaayeen gaari noociisu yahay Markeegas iyo waliba qalab kala duwan oo shirkadda isgaarsiinta casriga Telesom ugu talagashay macaamiisheeda waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka hore ee Somaliland ee xukuumadda Daahir Yaale Axmed Yuusuf Yaasiin Dr. Adna Aadan Ismaaciil mas'uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Telesom iyo boqolaal ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa oo soo buuxdhaafiyay howlka loogu talagalay carwadani ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay maamulka ku-xigeenka howlgelinta shirkadda isgaarsiinta Telesom Faarax Sugaal Guure waxaanu ka warbixiyay adeegan iyo ay shirkaddu soo bandhigtay iyo waliba sida ay bulshada uga faa'iideysatay 4G plus waxa uu yahay horaa loo sheego maalinta hore halka laga sharaxay waxa uu kaga duwan yahay 4G-gii hore ee wadanka yaalay waxa aad ku kaaftoomi kartaa mobilka aad gacanta ku sidatid waxaad kaga kaaftoomi kartaa qalab walba oo ku support gareyn lahaa ama kugu taageeri lahaa inaad isticmaashid internet xawaaro badan oo 4G sida mayfayada iyo waxa la midka waxaad ka isticmaali kartaa hadii mobilkaagu uu ku shaqeynayo 4G oo dukuba shaqeynayo inaad marna koolka ka dirsatid oo telefoonka ka dirsatid marna internetka ka isticmaashid sida caadiga ahayd oo aadan u baahanin device kale oo aad gacanta ku qaadatid ama jeebka ku ridatid marka macnaheedu ma aha device-kiina waa laga tuuray haddii aad u baahan tahay device-kii waad isticmaali kartaa waad ku isticmaali kartaa agaasimaha guud ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Somaliland Faysal Ali Sheekh ayaa soo dhaweeyay carwada waxaanu aad ugu mahadnaqay shirkadda isgaarsiinta Telesom waa shirkadda ilaa iyo maalintii la aasaasay ilaa iyo maanta oo aynu marayno 2016 intii ay jirtay korukac mooyaane mar kaliya aan hoos u dhicin runtii hambalyada iyo bogaadinta waxaan u dirayaa dhammaan shaqaalaha hoggaanka sare madaxda kala duwan ee shirkadda howlwadeenadeeda ayaan hambalyadaas u dirayaa waxaan leeyahay hambalyo Telesom mar labaadka runtii hawshan ay noo diyaariyeen oo ah inay dadkoodii wax ku celiyaan runtii waa arrin aad iyo aad u muhiim ah ummad fara badan oo dhalinyaro rag iyo dumarba u badan baa halkan fadhida qof waliba de message-kiisa waxaan fulayaa inuu soo dirtay mid waliba inuu filayo inuu ku guuleysto intaasi kadib waxa si rasmi ah loo gudagalay kala saaridda macaamiishii kala duwan ka qayb galay baqtiya nasiibka ay shirkaddu soo bandhigtay waxaana qof kasta lambarkiisa lagu riday iyadoo ay shirkaddu soo bandhigtay adeegyo kala duwan ay ka mid ahaayeen 40 mobile Galaxy iyo waliba 60 mobile oo Wi-Fi-ga nooca loo yaqaan laba laptop iyo waliba laba shooladaha kala duwan ee wax lagu karsado iyo gaariga noociisu yahay Markeegas oo qofkii ku guuleystaa halkaasi uu kala huleelayay marka intaasi laga yimaado waxa si rasmi ah loo gudagalay baqtiya nasiibka gaarigaasi waxaana loo xushay sidii ay u kala saari lahayd baqtiya nasiibkaasi iyo waliba macaamiisha Dr. Adna Aadan waxaanay Dr. Adna Aadan markiiba gudagashay sidii ay u kala saari lahayd macaamiishaasi kala duwan isla markaasina waxay soo saartay lambarkii ku guuleystay oo uu noqday wiilka magaciisu yahay Xamse Maxamed Fure waxaana isla markiiba halkaasi lagu wareejiyay furihii gaariga waxa aanu kala howleelay goobtaasi gaarigii loogu talagalay isagoo dareenkiisa ka waramaya ayaa waxa uu yidhi gaarigaaga muftaaxiisii igala wareeg shirkadda Telesom aad bay u mahadsan tahay waananu ka filaynay intaas iyo in ka badan waayo customer baan ahaa muddo fara badan waqti badanna customer baan ahaa waxaan isticmaali jiray adeegyadeeda kala duwan kullay dadkaas dhowrka kun ee qof kullay waxaan dheerahay ma jirto laakiin waa cadaaladda iyo fadliga Ilaahay alxamdulillah rabbil caalamiin
carwadan oo muddo 3 cishaa ka socotay hotel guuleed ee magaalada Hargeysa ayaa waxa si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay isla markaasina abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyay macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga Telesom waa Khadar Maxamed Maxamuud iyo Cabdi Cumar Jibriil telefishin qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.